aad ula yaab badan oo cajiib ah oo aad dadku ay la dhaceen oo kadibna aan ka daawaday facebookyada ama telefishinada iyadoo laga sii deynayo oo nin la yiraahdo Cabdi Good oo runtii heestaas falanqeeyay soo dhaweeya oo yaa sidoo soo dhaweey kara anigu nolosha waan ku dhaxabuuranahay ma garanayo nolosha cusub wuxuu ka wadaa heestaas waxa ugu maqaala ah inuu sameeyay nin la yiraahdo Cabdirasaaq Xamud Aydid Jailani oo aan leeyahay wad salaaman tahay oo aan aaminsanahay inuu fanka Soomaalida wax ku soo kordhiyay waxa la ku luqeeya fanaan aad u cod macaan oo dhalinyarada hadda soo baxday ah waa Maxamed Saciid BK laxan la yaab lana oo heesta mireedu siday u yihiin aana uu ku laray markaan ka gudbo oo soo dhaadhaco dulucda heesta markuu Cabdi Good uu ka sheekaynayo wuxuu ka qaadayaa sharafta wuxuu ka qaadayaa runtii nuxurka wuxuu nacsiinayaa intii dadka heesta jeclada dhageysanayay markuu erayada sidoo ugu dhawaaqayo wuxuu waliba adeegsanayaa erayo carabi u badan oo aan af Soomaali ahayn oo erayada de markii wax lala yaabo ah lagu hadaaqo ama lagu dhawaaqo ayuu ku dhawaaqay bal haddaan marka heesta mireeda aan inta hore ka soo qaato yahay cashaqo ka gaday qof kale aqligeedii xusuusku casuumane dada wehel moodaysa moodaysay dadana wehel moodaysa naf yahay cashaqo ka gaday qof kale aqligeedii xusuusku casuumane cidada wehel moodaysa bal erayada fiirsha وإريدي وقطب سنة النف لدوني إن دبدمس وهستي الدوحان أوركرنا ونلاش عصب صدوه لكن أنا وحان أربحي هستي الدبدمسكا هستي إمرجنسيكا نفتا لقبة بعديني إنك تاي نفي هاي عاشق وكجلي قف كلي عقل جدي حسوسكو عسومني إلا ذو هالموديس نف كلي الضون ونقطي oo jacaylku u cabayd shay uu dhaawacay ka dhig dad kale aan lahayn waxay runtii naftaasi wixii soo dhaxmaray labada qof ayuu bay isku madadaalaysaa isku maaweelinaysaa laakiin cilla joogtaa marka naftiiba uu sheegaya inay naftu ay cilla joogto haaban waxaan kugu idhiye haaban ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi waxaan kugu idhi ha caban ilmada cesho baan ku idhi laabtana culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi bal fiirsh siday isku saarsaaran yihiin waxaad moodaysaa heestatan in dhulka aan lagu samayn ee samaawaadka dusheeda lagu alifay waxaan aaminsanahay heesta qofkii ninkii sameeyay inay asaga qisada ku socoto sababtoo qof kale kama uu samayn karo noocaas waxaan kugu iri bal fiirso waxaan kugu iri ha caban ha calaacalim ha taayin ha cabaadin ilmada cesho baan ku iri laabtana culay baan ku iri laabta culay waxaa la yiraahdaa marka haanta yama dhiilaha gacanaha lagu sameeyo caanaha lagu shubta ama biyaha ee la doonayo dib in loo yagleelo loo wanaajiyo ayaa geedaha qaar ka mid oo special ah sida jilabka iyo geedka la yiraahdo meygaaga oo kale ayaa dabka intii la geliyo marka ay gaduutaan ayaa lagu culaa marka caanaha lagu shubaahi waxay noqdaan caana arfaya laabta culay oo dhibkii ka soo gaaray ka culay tasho oo ka tasho dhibka ku jira bal heesta mireeda sidee yihiin fiir
cabsiguu cararayaaye jacayloo calhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waa cararayaaye jacayl aan loo caalhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee waqtigu inuu cararayo shaki kuma jiro qofka daabaa ku socota foolxumaa ku socota xilli qofku wuxuu leeyahay jacaylka uu jilo xilli waxaa jira naftiisa uu ka fakarayo siduu u socon lahaa waa qof xilligii jacaylka jooga oo uu isdhiirigelinaya waqtiga cusub nolosha cusub soo dhawee cabdigood wuxuu nolosha cusub waa tee nolol cusub oo kale oo adduunka ka baxsan ma jirto waa runtiis laakiin micnaha uu dareemaya nooca ay tahay nolosha cusub waxa weeye qofka marka uu guursado nolol cusub buu galaa isbeddel baa ku dhacda noloshiisa marka uu weynaado nolol cusub buu galaa marka uu jacayl ku dhaco nolol cusub buu galaa marka uu shaqaysto nolol cusub buu galaa haddaan heesta dee aan siday tahay aan la rogaynin jacayl aan loo caalhelayn micnaheedu waxa weeye jacayl aan maaro loo helin ama wixii aan maaro loo waayo ama wixii ma garanaysaa dhibkoodu bato ama wixii ma garanaysaa hari waaye ayaa layahaa caalwaa la yidhaahdaa ama qofka ninkaa waa loo caalwaayey ama gabadhaas waa loo caalwaayey waxaan la yaabay in micnaha bal haddii hadda caawa la yidhaahdo sida geed caleen la ubax guudka qariyeen oo gooni labaha ay midabo geesteen hawaan iskartiya gunta mira aleeda oo soo gandoodo oo galka faraqa soo daray waxaa laga hadlayaa geed waxaa laga hadlayaa biyo waxaa laga hadlayaa micnaha laan soo gadoondoo godka kula jirta biyaha laakiin maxay micnaheedu noqonaysaa gabar bay kusoo gabagoobaysaa gabar iyaa kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigay gelisaa sida noocaas ay tahay oo kale wuxuu haddii la yidhaahdo ha loo sheego sida ay yihiin micnuhu ummaddu way isla dareemaysaahi nooca waxaasu ay yihiin marka nolosha cusub soo dhawee micnaha ay tahay oo dadku u fahmayaan cid kasta way dareemaysaa afyahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow bal waxaa ka waran nafyahay calwaa oo arrintaan ka hadlayna weeye eragaas mar labaad buu soo noqday nafyahay calwaa ha noqonin wax aan waxba maqlayno aniga qofkii watay baa la hadlaya wuxuu leeyahay nafyahay ha igu noqonin inaan adiga aad wax iga maqli weydo aniga aad igu jirtay ha igu noqon inaad wax iga maqli weydo nasiibkana ha u caroon hadduu calafkii ceshaday cuddoon way tagtay ogow qofka si kastood u jeceshahay si kastuu kuu jecel yahay haddaan calaf uusan isku kiin gelin ma shaqaynayso sheekadaas nasiibkana ha u caroon nasiibku qofka loogu talagelin ma helo kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun cilbax baan ku idhi maruun cilbax baan ku idhi waxaan kugu idhi kacuga waxa way markaad cub tiraahdo hebel baan doortay kubadda la dheelayo kacugo ka dooro cugo waa ka dooro asaaga ka dooro asaaga calma baan ku idhi qof adiga micnaha kula mid ah oo nolosha kula fahmaya raadso cidaad qalbigaan ku idhi qalbiga adkee cidaad waxa le markii waxa la adkeeyo cidaad qalbiga xirxir oo sidii waa qof sooman oo kale ka noqo oo qalbiga ka xir oo ka soon cuddoon ka soon wey adkayso qalbiga adkee mar uun ciil bax baan ku idhi ciilka hayay waxa weeye qofkii haddii qofkii sidaad u rabtay aad u weydo ciil baa kuu qabanaya waad caroonaysaa
cunadaad ka go'aysaa waad soo jeedaysaa waad u carooraysaa sababto waxa weeye qofkii intuu jacayl kugu abuuray ee marka hore uu ku carablaalaadiyey waa hees dheelitiran oo abwaankii sameeyey ku soo kordhiyey suugaanta soomaaliyeed wax tiro badan marka waxaan leeyahay cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani hambalyo inaad heestaas dabdamiska loo yaqaano marna loo yaqaano nolosha cusub soo dhawee anad dabdamiska aan u aqaano in ay ka soo baxday caqligaaga salimka fanaanka codka macaan maxamed siciidna uu ku laray laxanku siduu u ahaa ee loogu talagalay cod macaan ee runtii dareen lana uu ku qaaday sababtu waxa weeye waxay bulshadu ay u jecel yihiin haddii kale haddaysan micno heestu lahayn lama jeclaadeen waad mahadsantihiin waxaa kaamirada iga duubay jamaal cadaawe allah hadaysto waqtigu cararaya jacaylo calhelay ka jar kabago caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee